beesha reega Sharmaaka oo kamid ah bilaha deegaanada Jubbaland ayaa dowladda federaalka ku eedeeyay inay duudsiisay xaqi ay ku lahaayeen dhismaha maamul sameynta gobolka Gedo oo dhawaan dowladdu ay maamulo cusub u dhistay. Degmooyinka Luuq, Garbaharey, Buurdhuubo iyo Baardheere ayay sheegeen beeshu in dowladdu ay xaqi ay lahaayeen ee kuraasta siyaasadda ay ku duudsiisay. Shirka jaraa'id ee beeshu qabatay ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in xubnaha dowladda ay u soo wakiilatay gobolka Gedo aysan ahayn kuwa aqoon u leh dadka deegaanka ah sida ay u kala degaan iyo saamiga kuraasta siyaasadda sida ay u kala leeyihiin. Dhawaan ayay dowladda federaalka Soomaaliya maamulo u magacaawday degmooyinka Doolow, Luuq, Baladxaawo, Garbaharey, Baardheere iyo Buurdhuubo kuwaas oo maamuladii hore uga shaqeynayay ay ahaayeen kuwa maamulka Jubbaland hoos tago. Waxaa laga sameeyay degmooyinka gobolka annagoo ah beesha reer Sharmaake gaar ahaan Garbaharey midka laga magacaabay lama shaqeynayno mana aqoonsanin waxaan ugu galifayna waxa weeye wixii aan xaq u lahayn baan ka weynay lambarko waxaan nahay dadkii dhidibaa u dhigay dowladda oo la shaqeynayay Jubbaland ka hor yimid oo mucaaraday waxa ay ku dhaxayso oo ku dhaqmayso qurxigaan u dulqaadan waayay annagoo ahayn indhii isbedel doonka iyo hogaankii dowladana in badan sugaynay in ay samayso cadaalad sinaan iyo cid walba miisaanka ay leedahay inay ku tixgeliso waxana ku siiso yaa waxaa la sameeyay waxaan u dulqaadan karin oo aan loo sinay oo nalagu duleeyay sida awgeed waxaan u sheegaynaa dowladda dadka ay u soo dirsatay arrimahan ma ahan dad ehel u ah ama u qalmo masiirka la yidhi sameeya waa isku dil iyo inay dad duleeyaan dowladdana mucaarad u abuuraan dad u yimid weeye beesha dadka loo soo diray ehelna aanu ahayn arrinta loo wakiishay waxaan codsanaynaa in dib u eegid lagu sameeyo maamulada Baardheere, Buurdhuubo, Garbaharey iyo Luuq deegaankaas dadka degan baan ka mid nahay beelaha ugu waaweyn oo degan baan ka mid nahay ilaa haddana kama hayno wixii aan xaq u lahayn annaga meeshaan dadka yimid oo u yimid inay maamul sameeyaan dad u qalmo ma ahayn mana qaadanayna waxay dhiseen mana qaadan doono Garbaharey ka qaadan mayno Buurdhuubo ka qaadan mayno Baardheerena kama qaadanayno inta ayadana waa nuula dulmiyey dowladda federaalka yaa dulankaas koowka sababtoo dadaan laaqi u ahayn bay u dirtay dadaan bislayn bay u dirtay Jubbalandna waa ka hor nimid dadkanagi baa shaqada ku waayay dadkanagi baa lagu laayay wixii loogu leeyahayna waxay dan caam iyo maslaxa in loo gudbo xaqa aan leenahayna aan helno mana aanan helin ma aan heli doono sababtoo waxa weeye dadka loo diray oo ariga la raacsadaan badad bisi lahayn nin baa waxaa laga sheegay gaajada ka baxbaan guntiga u furtay haddaan kala geerishkeedii waxaan mudaaharaadka iyo isku dayga iyo kacdoonka u samaynaynay in wax wanaagsanaadaan Jubbaland inay najaxdo dowladda federaalka inay najaxdo wanaag iyo horseed wanaagsan bay ahayd waa ka darta dowladdaana kabaha u gelisay dadaan laaqi wayn bay u dirta dadkii deegaanka u badnaa oo qabiilka reer Sharmaake ahaa oo Buurdhuubo deganaa Baardheere deganaa Garbaharey deganaa Buulaxaawo deganaa Luuq deganaa haba yaraatee wax horma ah iyo wax jalaaca midna looma yeelanin waa arrin la yaab leh way dowladdanadana kama aan sugaynin waxaanu codsanaynaa annagoo qabiilkaas reer Sharmaake ah dowladdu inay dadka isku dirto magaalooyinka nabadda ahaa oo la isla deganaa oo dadka walaalaha deganaa maanta colaad baa ka muuqata waxaasna dowladda ayaa ku lug leh waa nasiib darro inay dowladdanada colaad abuurto oo meelayna aqoon u lahayn gacmayso oo dalkeeda ayna ka warrabin oo sida loo kala badan yahay ayna ka warrabin haddana dad macquula in u soo dirin oo dadka kala yaqaano mana ahaan taas iyada dowladdu ugu noqon maa shacabna ugu noqon mayno ayaa haddana wax naloo soo yiri ayaa maalin walba dusha nala kaga keenaa haddana waxna anfaca maahan waa wax lagu dulman yahay
وواحد بسيطة كم كود المنطقة أنت ذا بدن وواحد منطقة جول كود المية هاي جول كلها منطقة هذا كود المية وياه دولة وحنقعد سنة هنا إن بدل ما كان بسوقني صوتهم في السنة الدولة الصومالية أبو بصرت دولة قبل كان عقبة تمحي ماني دولة ما تشتت محمد عبد الله فرماج وهو قامي واتي أروها الكويني واتي الهين وهو قبض بدنتا واتي الهين وضع بقلب ويستاج دونا ما أنت وحنا عطت مكة قبل كده الليبل هو سي إن الدولة الجاسسي صوتها بحوي dadkii intaas oo 4 sano dawladda ay halgamay oo isbaldal doonka aha oo Jubbaland la dagaalamay oo dawladda dhexda u xirtay maanta in xolka gada ku yaalay inaan hal masuul laga siinin wax shaqeynay maaha wax ay yeeleen maaha waa wax aan ka dagaalami doono waa wax rag iska dhaaf gabdhaha waxa ay yeeli doono maalxim halka waxa isugu yimid beesha reewgaashar market oo ugaasiyada iyo boqorada gobolka gada degan uguna baaxadda weyn waxa maanta halka la isugu yimid marti sharafka halka shirka lagu soo qabanqabayay ajabtiisu wuxuu yahay waxa dawladda dhexe ay noo soo qoorisay ama ay naga damacday ayaa qaadan weyn anagu qori ma wadano dambaasa loo qaadan qoriga hadii dawladdu waxa ay hadda ay samaysay ay wax ka qaban oo si degdeg ah ay gobolka u imaaneen qorigu way iska tagaysaa annaga hadii aan nahay Jubbaland oo aan gada deganahay waxaan nahay qabiilada ugu qiyada badan ugu maalka badan uguna deegaanka badan hadii aan ka hadla deegaanka reewgaashar market dego waxa kamid ah Garbaharey Buurduubo Baardheere Buraa Ceelguduud iyo Fafaxdhoon iyo Kismaayo hadii deegaanada la wada degan yahay aan ku darana luuq iyo bulaxaawo iyo ceelwaaq intaba waxba ka deganahay laakiin deegaamada khaaska oo aan la tarixin oo markii aad tagto 100 qof markaad aragto 99 ayaga ay tahay dadka inta dega ilaa diif iyo libooyo in Jubbaland ay mucaarado wadadii Jubbaland ay haysay bay dawladuna raacday marka waxaan u aragnaa wax qabiilka loogu tashaday oo qabjabisa oo kufsashaha tan u aragnaa aqli dawladda dhexintay mafruuxiyo mid soo fariisatay mid reewgaashar marka lagu hayo mid ay garan waayeen maahan mid kufsashaha u aragnaa oo boqortooyadooda lagu la dirirayo oo miskaxdooda lagu la dirirayo oo maalkooda lagu la dirirayo oo muruqooda lagu dirirayo midaan kufsasho weeyaan dhigi karaan naagaha la kufsada laakiin qabiil boqorra ah oo qaniya oo ilaa raas casayr iyo raas gambooni degan oo hub iyo maal ba haysta in macnaha laga soo qaado mas'alad darteed waxaan waxba yahay taas Jubbaland ba ka soo qaaday waana qaadan weyn waana ka dagaalanay waana ka banaan baxnay midii aan lahayn ku hiranay oo aan lahayn waa ku najaxaysan oo xaqiina idin siinaysa oo cadaalad bay idin siinaysa oo qanyahana la siinaya oo ummadda sade bay sida u dhaamaysa ayadaaba sii baqtiisay waxay noo qabatay iska daayay dambay bay isugu dhiibtay maamulka hadda la soo magacaabay iyo midkii hore Jubbaland soo magacaawday waxa aan kacdoonka ka dhalinay waxay maamulkii Jubbaland soo magacaabay oo aan mas'uuliyadda qaadi karin ka daro dibidal midda hadda ahaba ka dartay dawladina sabadan oo aan lahayn ummadda Soomaaliyeed waa indhaheedii waa laf dhabarkeedii waxbay ka qabanaysaa waxbay ka bedelaysaa aqoon-yahanay keenaysaa oday dhaqameedii culimadiinka la tashanaysaa waxay la tashanaysaa male kuraya laga gabdhooda foodale inta meel mugdi ay isugu goyso qalin been qaraf la siiya diyaar la soo saaraya war waxaan dawladdu waxaan nama anfacaysa nama qabato qoon jiraanahay tii Jubbaland baan ka diririn oo aan ka dhidin laakiin aan ka soo horjeesanay inaan la shaqeyn midda waxaan diyaar u ahay maskax iyo maal iyo muruq inaan la shaqeyno midii aan la shaqeyn lahayn oo u hanweynayna si toosayna noo sii jiido tii hore wadadeedii bay raacdo ma yeelayno mana yeeli doono mana qaadanayno waana qadaf waxaan baa u dirayaa farmaajo iyo khayr waxaan leeyahay si degdeg ah ku imaada gobolka Gado 4 sano doorantiin gobolka Gado maydan imaan agab ciidan kama hayno agab shacab idin kama hayno salaam idin kama hayno sad joogta idin kama hayno de waxaan u aragnaa qashin qub laga maarmo badal lagu daro haddana xabad baad isugu dhiibteen wayna taagan tahay hadaydan halka wax ka gaarin oo baaqa aan dirayna si degdeg ah aydan wax uga imaan wixii Gado ka dhaca dawladda degmo Gado waa abni qashin waxaan isaga jirnay nin toosiga naga isaga jirnay dawladda wax kama helo dakhli kama helo deegaan isku tashaday oo shacabkiisa iyo ciidankiisa isku tashaday baan nahay cadawga iska garabsada calafka isla qaybsada cidna wax kama helo dawladii aan ugu hanweynayna ugu hanqaldeeray waxa weeye dawladii intay jabtay 7 madaxweynaha dalka soo maray 7 madaxweyne
xasan sheekh maxamuud baa ka jira waxyooyin soo yimid oo ciidda gadacagaha soo dhigay dadwada degmo asna waxa nooma qabana dalxiis buu yimid dalxiiskiina wuu ka noqdo dantu kala haabo xataa asaga dalxiis looga yimid lixdii kale mid dalxiis loogu yimid male mid dakhli noo keenay male mid wax noo qabtay male marka gada waa meel ciidankeeda looga gudbo raggeeda iyo hantideeda cadawga looga qabta calafkana wax laga siiyo mas'uuliyadii aan lahayn annaga reer waa sharmaaka dawladda kama aanu helin ugaaskaan u sheegaynaa farmaajoaan u sheegaynaa qayraan u sheegaynaa gabar iyo wiilba waxaa noo tuman biraha iyo mudaca iyo midida maalkanaga iyo dahabkanaga iyo muruqanaga iyo maskaxdanadana dal iyo dibad isticmaalayna dagaal baana laga xilaamiyey waana laga sarfay boqoraadkiina gabadaan niri jilaan xuseen yuusuf TV-ga caalamiga ee dalka Garbaharey xarunta gobolka Gadow.